waxaa laga joogaa muddo hal sano ah maalintii xilka lagu wareejiyay maayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame. Hal sano kadib ayaa waxaa si weyn isu bedeshay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay wadooyin casri ah iyadoona kor loo qaaday dakhliga dowladda hoose ee degmada Boorama, taas oo sababtay in muddo hal sano ah waxyaabo badan laga hirgeliyo degmada Boorama iyo deegaanada hoos yimaada, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhismaha jidadka magaalada Boorama oo dayac badan ka muuqday, dhismaha seelada xoolaha ee degmada Boorama oo dayac tiro ballaaran lagu sameeyay, Sariimada Axmed Gurey ee gudaha magaalada Boorama oo iyadana sidoo kale la dayac tiray, dhismaha bangiga dhiigga ee cisbitaalka magaalada Boorama iyo mashaariicyo kale oo qaarkood socdaan, kuwa kalena laga hirgeliyay deegaanada hoos yimaada degmada Boorama sida Quljeeda, Boon, Magaalo Cad iyo deegaano kale ayaa waxaa maanta si weyn uga mahad celiyay waxqabadkan maayirka degmada Boorama. Shacbiga ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxayna sidoo kale ka difaaceen duqa degmada Boorama eedeymo shalay uga yimiday mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan qiraynaa oo aan markhaati ka nahay muddadii sanadka ahayd ee golaha deegaanka ee aan dooranay cusub ay joogaan inuu magaalada Boorama ay ka muuqato waxqabad mug iyo miisaan leh. waxaan markhaati ka nahay oo magaalada Boorama ka socda 14 mashruuc oo waaweyn, dayactirka Sariimada, dhismihii Kaawaanka, haddii laba ku reeyay dhismaha maxay ahayd waxaan u jeedaa gegada, dhismaha saldhigga Boon, 14 mashruuc oo waaweyn sidaad arkaysaan, dayactirkii wadooyinka halbowlaha ahaa waxaan marnaba la qarin karaynin oo biyo kama dhibcaana inay maxay ahayd inay magaaladani isbedel weyn ay ku talaabsatay, isla mar ahaantaana bulshada nin maqal iyo nin joogaba la taaban karo ay ku talaabsatay. taasina waxay ku timiday hogaaminta fiican ee degmadu haysato, isku duubnaanshaha iyo midnimada iyo wadajirka golaha deegaanka ee degmada Boorama. waxaan fariin baan halkan uga dirayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama. waxaan leeyahay waxay degmadani ku horumaraysaa, waxay degmadani wax ku noqonaysaa, waxay degmadani degmooyinka kaga horumaraysaa ama gobolka kaga horumaraya inaad isku duubnaataan, inaad sidaad horeba ugu soo shaqaysaan halka ugu soo gaarsiisaan wada jirtaan. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa xildhibaanada sharafta iyo maamuustii milgaha iyo aqoonta leh ee aan maanta hal sano iyagoo shaqaynaya aan weli miidiya aan soo istaagin marka laga reebo xildhibaan Axmed Khayre oo aan lahayn fahan siyaasi ah. Axmed Khayre wax fahan siyaasi ah male yarkaasi bilowgiina de waxaad waad ogeydeen mishaarkiisa 20 kun baa looga bilaabay wixii uu buuna raadinayaa. marka waxaan leeyahay maayirka iyo ragga maamulinta idinka meel sare gaarsiiyo mishaarkiisa 20 kun uga bilaabay hoos ugu soo celiyo. waxaan waa cashuurtii bulshadana musuq iyo inuu nin shakhsi lagu laalusho bulshadani way ka gudubtay. xildhibaanada sharafta iyo allana waan salaamayaa dhammaantood 12 kale aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaa hawshaad u wada baan leeyahay. annaguna waan garab taaganahay, wixii aad hagaajisaana waan nigu hambalyeynaa, wixii aad xumaysaana waan nigu dhaliilaynaa. muddada sanadka waxqabad fiican baa ka muuqdo degmada Boorama oo ay maanta beesha caalamka iyo moogta iyo bulshada reer Soomaaliland ay ogyihiin maanta in degmada Boorama moogta wadooyin la dhisay. moogta degmada Boorama maanta waxa ka sida moogta 12 mashruuc ama 12 dhisme oo iskooladii ka mid yihiin, masaajida ay ka mid yihiin, iskoolada qaarkood oo moogta galaas lagu biriyo ka mid yihiin. wadooyinkii maanta arkaysaa waxaan marnaa maanta waa laamida cusub, laamida shalay laamiga oo go'an laakiin maanta waxaan marnaa laami cusub oo laga sameeyay cashuurtii degmada Boorama. marka maayirka maanta sabab xalay waxaan daawaday moogta mid ka mid ah moogta xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama oo moogta waxoogaa dhalay u soo jeediyay moogta maayirka degmada Boorama. waxaan leenahay moogta Axmed Khayre ma waxaad baratay ma 20 kun shalay lagu siiyay baa ku meesha maray moogta 20 kun dad shalay qaatay maanta maayirka degmada Boorama kugu moogta musuqmaasuq kugu siin maayo 20 kun oo kale inaad maalmo meel ka hadasho. wallahi inaan hal dollar ku siino wallahi annaguna maayirka Boorama ka yeeli mayno, Maxamed Axmed Warsame ka yeeli mayno inuu shakhsi ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama oo meelaha ka hadla moogta lacag la siiyo moogta adeer dad baa soo doortay shacabkaaga daw shaqo wiiladeer jaanno garamayna meesha ka tibday weyn. maayirku iyo maayirku xigeenka iyo xogayaha degmada Boorama waa 3 nin oo hawlkara ayaa u soo baxay degmada Boorama. waa 3 nin oo ku suntan moogta inay dadka iyo deegaanka wax u qabtaan oo meel walba wax ka qabanaya. marka adeer in Khayre iska hadlo waxaan ku leedahay tukaankaaga iyo saflaaga iska isaadeer oo maadaama aad miisaaniyadan aad leedahay waa reer Burco iyo miisaaniyada waxaan siiyay moogta waa miisaaniyadii Burco
shalay adiga ansixi miisaaniyadda qolihii ka dooday baa tahay maxaad u odhan weyday miisaaniyaddan waa tiira burco ansixin mayno markaad maanta leedahay waa miisaaniyadda burco axmed khayrow waxaan ku leeyahay hubsiima hal baa laysaa saaxib xildhibaan axmed khayre oo shalay aflagaadaynayay maayirka waxqabadka maxamed axmed warsame maxamed axmed warsame waa nin ku ammaano waxqabadka uu qabtay waxaa ka mid ah waddadii loogu magac daray shidabile waddadii loogu magac daray aadan isaaq waddadii loogu magac daray beekhaan hotel waxqabadka magaalada weeyi iyo sayladda xoolaha oo maanta sidaa ay u eg tahay kolley haynu wada arkayna shalayna meel duuga ahay intuu dhaafay maxamed axmed warsame gudihii magaalada wuxuu marayaa maanta maxamed axmed warsame goobihii awdkii inuu baxo waxaa ka mid ah deegaan ahaan anu meeshaa ka soo jeedo oo basa ah inuu soo dhagax dhigay maxamed axmed warsame oo iskoolka uu ka dhagax dhigay iskoolkiina maanta uu socdo meel fiican ta kale boon wuxuu maxay ahayd aanay dhagax dhigay station waa la bilaabay waa la dhammaystiray maanta keliya waxaa hadhan in xadhiggii laga gooyey maxay ahayd aanay waxaasi waa horumarka uu sameeyey magaalada dhexdeeda iyo goobaha awdka ee ka baxsan marka axmed khayre waxaan leeyahay axmed khayrow iminkaad caafimaad iyo qabtaa cududo waaweyne iminkaad adduunyadan camiran caga ku joogtaa waa maxamed axmed warsame waa nin waxqabadka ku maxay ahayd aanay suntan laguna sheegi karo laguna ammaani karo marka waxaan leeyahay ninku tabay waxna taray deegaanadii kabay ka been ka sheegaya guna run ahaantii horta wax la qarin kara maaha haddii aan ka hadalno waxqabadka dowladda hoose gaar ahaan maayirkan degmada boorama master baradho waxqabad aad wanaagsan buu qabtay dalkan gaar ahaan gobolkan awdal waan maqlinay sheeko ka daba dhacaysay oo lahayd dee waxqabadkii maayirka oo aan waxba laga soo qaadin waan maqlinay baleeshu waa iman kartaa labada qof is qaban karaan xildhibaanada waxaan leeyahay waa maayirkeennii waa hormuudkiinnii inaad taladiisa qaadataan ayaa wanaagsan baan leeyahay talabaad waxaan kaloo soo jeedinayaa xildhibaanada kale ee wax sheegaya waxaad sheegaysaan ciddii qabanaysa waa inniga eed maayirka ku taakulaysay laakiin wixii la qabtay ee maanta dadka loo qabtay ee wanaagsan aan arkayna muuqda inaad tiraadaan lama qaban iniga la fahantiina waxay nagu tahay dad aan waxba qaban marka waxaan leeyahay mar kasta waxay noo fiican inaad wada shaqaysaan haddaan ka hadlo waxqabadka maayir maxamed baradhe muddada sanadka uu joogo horta wax fiican oo la arki karo la taaban karo uu qabtay wixii dambana hadday ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka sariibadii iyo waxyaabo kale oo lamida ba uu qabtay waxaan ka sugaynaa waxqabad intaa ka sii badan muddada uu hadhay isaga iyo golaha deegaankaba wada tashi iyo isku tanaasul iyo wada shaqayn inay ka shaqeeyaan sidii bulshada loo horumarin lahaa iminka rag dhallinyara oo waxqabad fiican oo isku tanaasulaya oo ismaqlaya ayaa degmada loo dhiibay waxaan ka sugaynaa markaa oo bulshada reer boorama ay ka sugaysaa sidaa iyo si ka wanaagsanba inay ku sii wadaan halkana ay ka sii wadaan dadaalna ay la yimaadaan waxqabadka bulshadana ay u horseedaan meel kastana dee looma baahno uun hadal iyo afuun looma baahnee waxqabad baa loo baahan yahay runtii waxaan ka sheegayaa halkan magaalada boorama maanta maalin ay ka fiican tahay ma jirto nin asal oo nasabo daacad oo ilaahaysa garanaya yaa helay kii maanta waxaa ka sheegaya ilaahaysu baanu sheegaytee annagu beriis nasiib ma nidhaahdan laakiin nidaamkaas ugu socdo ayaan ku faraxsannahay marka waxaan leenahay war maayirkii ugu horreeyey waxqabad ayaynu helnay aynu ku faraadayno marka waxaan leenahay maayirka iyo nimankan yar ay nimada yar ee dhaleecayn golahana ka mid ah waliba xubin golo deegaan ka mid ah waxaan leenahay war haddii dad liqadiyay maayirka oo maayirku liqadiyo wixii la iska cunay lacag la iska cunay laga qabtay daadeer waxaan leenahay ka daaya maayirka waa maayir ilaa Hargeysa meel walba looga sar kacay oo lagu amaanay oo leeyahay maayirkii ugu horeeyay Boorama wax u qabtaya ay weeyaan marka waxaan leeyahay dhaleecaynta ka daaya waxaan leenahay maayirkeena maayir baranaan la shaqeyno sida awalba ilaa waa inagii marka hore afar jeebla la shaqeyn jirnay oo isagoo wax iska cunayaan arkayna aynu iska eegi jirnay marka waxaan oran lahaa dhalinyarta yaan lagu degdegin yaan leexweyn maayirku maayir shaqeynay weeyaan
muddo sanadana waa joogaa muddo badan oo lagu qiimeyn karana ma joogo marka iminka isagoo sanad jooga adiga arkaysaa waxa qabadka uu inoo qabtay iyo maayirka Boorama waa maayirka ay magaalada Boorama u baahnayd hadii la yiraahdo dhanka wadooyinka oo maanta wadooyinka lagu faani karo wadada weyn ee halbowlaha Boorama soo martay kii sameeyay wadada Siirooga ninkii sameeyay